بدي احكي للشباب الصوماليين اهلا وسهلا فيكم بالمغرب. احنا كمان ان شاء الله كل البنات المغربيات بنجيبهم على الصومال ان شاء الله، مشان هيك نتعارف ونكبر العيلة ان شاء الله. waxaan joogaa Morocco dhinacayga waxaa fadhiso gabadhii aan isfahanay oo darteeda aan ugu imaaday dalkan. Xaliimo waa isdhaafnay. Morocco ayaan joogaa, wax walbana waa ii dhamaadeen iyadoon lacag badan iga bixin oo weliba lacag aad u yar. waxaa laga yaabaa in lacagtan biil ahaan aad u isticmaali jirtay. dahab badan ma jiro, meherkii 50 gram ma jiro, 100 gram ma jirto, waa 20 gram iyo wixii ka sii hooseeyo. biilkii $100 ma jirto, waa $100 oo keliya. wax badan oo aadan ogeyn ayaa Morocco ka jiro. waxaan rabaa muuqaalkan aan u soo sameeyey, dad badan ayaa waxay u arkaan wax maalaa yacni ah, laakiin waxaan rabaa inaan nii xaqiijiyo maadaama hoosheeda ay dhammaatay oo isbuuca soo socda wax walbana ay ahaan doonaan sidii loogu talagalay. gabadhu waxay noo sheegtay inay imaan doonaan qoyskeeda, saaxiibadeeda Soomaaliya inay soo booqan doonto. wiilasha Soomaalida waxay dhaheen wiilal la heli kara maahan, weligeena ma arkin wiilal la mid ah. war sida noola soo dhawey waa yaabe. maalinba hotel, maalin walba maqaayad, maalin walba guri cusub, casuumaad. war meeshan saa u malaynayna maaha. waxaan isleeyahay meeshan ma iska degtaa haba laabaninbo. لأنه تعرفت على شاب صومالي. الشباب الصوماليين ما شاء الله عليهم كثير طيبين، معاملة وأخلاق وكل شيء. war faaraxow, war saaxiibkaygiiyo meel ibra haysataa. fursaddan beri inay dhammaataa laga yaabaa. war maantay furan tahay. xitaa waxaa lee sheegaa in xitaa waxyaalo badan la fududeyn doono oo dadka oo guurku imaan doono, fiisooyinka iyo waxyaalahaas loo fududeyn doono. laakiin adiga berita markay dhammaato ay dhihin Axmed Cadaani fursaddan waa iga qarsatay. horta dalkan inta aan imaanin wax badan ayaan ka aaminsanaa. dad badan oo iga horeeyey waxay ii sheegeen in nolosha meeshaan ay tahay mid aad qaali u ah. dadka Soomaalida waxyaalaha aan kala yaabo waxaa ka mid ah dalkan aan joogno ee Morocco waxaa la leeyahay nolosha waa qaali, guurku waa qaali, waa kan ma jirto. meeshaan waxaa uu imaanay xaliimooyin baariyaal ah ku adeecsan wax hadalkaaga mooye hadal kale aan dhegaysanaynin. way dhammaatay. waxaan ii gad, waxaana rabaa way dhammaatay. war faaraxow, war saaxiibkaygiiyo meel ibra haysataa. fursaddan beri inay dhammaataa laga yaabaa. war maantay furan tahay. xitaa waxaa lee sheegaa in xitaa waxyaalo badan la fududeyn doono oo dadka oo guurku imaan doono, fiisooyinka iyo waxyaalahaas loo fududeyn doono. laakiin adiga berita markay dhammaato ay dhihin Axmed Cadaani fursaddan waa iga qarsatay. asi keligiisa waxaan samaystay, dadka uma sheegin. maanta weli fursadaa haysataa. imow, wax qarasha ka fikirin, ilaaha arsaaqda bixiyo. wax weyn maahan meeshan, wax weyn ma ahan. hurdada ka kac, beri ilma cadcad insha Allah ilaahay ku siin doonaa. waa lisdhexgalaa meeshan, dhexgalaa socdo insha Allah. gabadhu waxay noo sheegtay inay imaan doonaan qoyskeeda, saaxiibadeeda Soomaaliya inay soo booqan doonto. wiilasha Soomaalida waxay dhaheen wiilal la heli kara maahan, weligeena ma arkin wiilal la mid ah. war sida noola soo dhawey waa yaabe. maalinba hotel, maalin walba maqaayad, maalin walba guri cusub, casuumaad. war meeshan saa u malaynayna maaha. waxaan isleeyahay meeshan ma iska degtaa haba laabaninbo. waxaa laga yaabaaba inaan ugu dambeyn meeshan iskaaga noolaado aan nii soo laaban. marka fariinteeda u dambeyso hadalka inaan badiyo ma rabo. waxaan leeyahay meeshaan imaada, xaliimaha laga tashto, meeshaan hala imaado. kharash badan ma jiro, farxad bilaa buuq ah, bilaa lacag ah. inta imow insha Allah. waxaan u balanahay meeshaan aan kugu soo dhaweyn doono. Morocco aan u balanahay. والله أنا مسرورة كثير تماما إنه تعرفت على شاب صومالي. والشباب الصوماليين بصفة عامة كثير طيبين، أخلاق ومعاملة ما شاء الله. بدي أحكي للشباب الصوماليين أهلا وسهلا فيكم بالمغرب. إحنا كمان إن شاء الله كل البنات المغربيات بنجيبهم على الصومال إن شاء الله، مشان هيك نتعارف ونكبر العيلة إن شاء الله.